dhegaystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh ee nagu xiran oo ku soo dhawaada halkani waa Xusni News. dhanka Facebook-gana waxaad nagala socon kartaan boggeena Xusni Post. Qodobada warkeena maantana waxay kala yihiin shirka u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo la filayo inuu ka dhaco Muqdisho goor ay maamulada qaarkood wali soo gaarin maalinkii loo ballansanaana la joogo. Cambaarayn uusan waxba ula harin ayuu dusha ugu tuuray Erdogan madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden. Cambaaraynta Erdogan kadib Joseph Biden ayaa ku soo biiray baaqyada nabadda. Mareykanka oo cambaarayn ugu jawaabay cambaaraynta Erdogan ee ku aadan mowqifka Mareykanka ee colaadda Falastiin iyo Israel. Joe Biden oo cagta furay xilli wax laga weydiiyey colaadda Falastiin iyo Israel. Shirkii 20 May ay u ballansanaayeen madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka ayaa waqtigiisii la gaaray. Xilli ay madaxda Galmudug iyo Koonfur Galbeed soo gaareen Muqdisho iyaga iyo waftigooda. Madaxdan ayaa si diiran oo heer sare ah loogu soo dhaweeyay caasimadda dalka ee Muqdisho. Shirkan ayaa wuxuu kuwii hore ugu duwan yahay in uu qabanqaabinayo Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Maxamed Xuseen Roble. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo amniga iyo qabanqaabada doorashada lagu wareejiyay kadib markii dhowaan laga laabtay muddo kororsigii la ansixiyay, ayaan la ogeyn guusha uu soo hoyn doono. Afhayeen u hadlay maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa xaqiijiyay in ay ka qaybgali doonaan shirka uu ku baaqay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. Wareysi uu bixiyay madaxweynaha Jubbaland ayaa wuxuu ku adkaystay in ay tahay in gobolka Gedo dib loogu soo celiyo gacanta maamulkiisa Jubbaland. Arrinkan oo horaan la isugu fahmi waayay ayaan la ogeyn waxa uu ka sameyn doono Ra'iisul Wasaare Roble hadday codsi hordhigto Jubbaland. Qodobkaasi ayaana ka mid ah qodobka burburin kara shirka maadaama ay isla qabaan maamulada Jubbaland iyo Puntland. Si kastaba ha noqotee iyadoo la arki doono shirkan waxa ka soo baxa oo aanan la garanayn waxa laga sameyn doonaa haddii uu burburo, ayuu rajo fiican ka muujiyay afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo oo hadlay. Muuqaalkiisa ayaana qaybta ugu dambeysay kula wadaagi doonaa hadduu eebba sharafta leedo. Dhanka kale waxaana la saadaalin karin galaangalka madaxweyne Farmaajo iyo shirka. Madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay hadalka Joe Biden ee ah in Israel xaq u leedahay inay isdifaacdo iyo go'aanka uu Mareykanka hubka ugu iibanayo Israel. Erdogan ayaa wuxuu yidhi xuduudaha Falastiin waa kuwa la harqiyay lana cadibay, dhiig ayayna la dhacayaan sida wadamo badanba ay ugu waayeen nabadoodii burburkii Cuthmaaniyiinta. Adiga Biden ah waxaa taageeraysaa arrinkaas. Waxaa taariikhdu ku qoraysaa gacmahaaga dhiigga leh, waadna nagu khasabtay inaan sidaasi oranno. Sababtoo ah kama sii aamusi karno arrinkan intan ka badan. Cambaaraynta Erdogan kadibna Joe Biden ayaa ku soo biiray baaqyada nabadda, wuxuuna Xamaas iyo Israel u jeediyay in xabad joojin la sameeyo, xaaladana la dejiyo. Hadalladan oo isdaba joog ahaa kadib, wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa cambaarayn u jeedisay Erdogan, waxayna hadalkiisa ku tilmaamtay mid xadgudub ku ah shacabka Yahuudda oo aanan u qalmin. Maadaama hadalka mudane Erdogan uu ku jiray waddanka dhiig daadinta ku caanbaxay ee caadeystay dhiigga shacabka masaakiinta ee Falastiin. Dhanka kale, goor su'aal ku saabsan Falastiin laga weydiiyey Joe Biden ayuu cararay. Joe Biden ayaa markii hore ogolaaday in su'aal la weydiiyo, balse markii uu su'aasha ogaaday inay ku saabsan tahay colaadda Falastiin iyo Israel ayaa gaari uu tijaabinayay hal mar sii daayay. Goobtan ayay Joe Biden si kedis ah ugu kulmeen Rashida Tayyip oo ka soo jeeda Falastiin kana tirsan Koongareeska Mareykanka. Dadka ayaa laamiga kula hadlay Joe Biden goor uu ka soo degay diyaaradda Air Force 2 oo uu tijaabinayay gaari. Warkii oo aad ka daawanaysaan YouTube-keena Xusni News iyo boggeena Facebook-ga ee Xusni Post waa naga intaas. Waana inoo kulan dambe oo xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.